Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Casharkan waxaan ku baranaynaa qaabka liisaga bloggareeyo ama liisaga celiyo markaa website akhrinayso kale ama Facebook sida Facebookyada kale markaa akhrinayso kale sida Twitterka kale YouTube kale markaa akhrinayso wararka caadiga ee Soomaalida kale ama BBC ama All Banaadir kale markaa akhrinayso kale waxyaabo waxaa jira oo maaragtay website aadan u baahnayn oo lagu soo gelinayo waxaysiin ah oo maaragtay lagu soo saarayo marka maanta dhan xataa maaragtay kugu sameynayo anooyin macnaha ku dhibayo kale sida qof qaawan kale lagu soo saaro kale waxyaabo xayisiin oo maaragtay in lagu soo saaro kale waxyaabahaas oo dhan si ay isaga bloggareyso waxa u baahan tahay app la yiraahdo ad blocker kaas wuxuu ku saamaxayaa in waxyaabahaas oo dhan maaragtay aysan ku soo gelin maaragtay oo uu ka celinaya marka waa free download app store ka tigaysa waa soo dejisanaysa sida ugu fudud hadda aan idin tusi doonana waxa waaye inaan maaragtay qaybta setting aan tagno oo maaragtay website la yiraahdo DNS AdGuard website la yiraahdo aan maaragtay meeshaas gelinaya website kaas ka celinaya waxyaabaha maaragtay oo dhan maaragtay qaabkaas ayaa ugu fudud marka si aan maaragtay hadda aan u barano sida loo geliyo kale waxaan tageynaa setting ayaan tageynaa setting markaan tagno waxaan tageynaa connections meesha ku qoran tahay qaybta ugu koreysa connections markaan tagno waxaan tageynaa more connection settings meesha ku qoran tahay hoose qaybtan hoose more connection settings meesha ku qoran tahay ayaad click siinaysaa meesha ku qoran tahay private DNS on ayuu ku yahay private DNS meesha ku qoran tahay ayaa click siinaysaa markaas hadda automatic ayuu off iyo automatic ayuu ku aadan yahay ujeedaa mid dhexe ayuu ku aadan yahay waxaan ka dhigaynaa private DNS provider host name-ka ayaan click siinaynaa qaybta dhexe ayaan kasoo qaadnay calaamadda buluugta ah waxaan keenay private DNS provider-ka ayaan tagnay markaan tagnay website-ka waa kana marka ani already waan ku qoray waxaa la yiraahdaa dns.adguard.com ayaa la yiraahdaa dns.adguard.com ayaa la yiraahdaa waa kasan hadda already waa geliyay hadda aan tirtiro kala fiiri hadana aan ku celiyo kale waa kaasa mujeda dns.adguard.com ayaa safe ayaa leedahay marka uu save gareeyay mujeda marka waxaan tageynaa website-yadan tageynaa oo kale sida Google Chrome-ka kale markaan tagno Google Chrome-ka All Banaadir kale website-kaas ayaan booqanaynaa All Banaadir markaan tagno ujeeda wax hadda waxaysiin maaragtay ku jirto ma lahan qorka rabtaad akhrisanaysaa ujeeda ilaa hoos ilaa kor ujeeda Facebook kale sidoo kale marka hadii aan macnaha aan iska bloggareyno maanta hadda aanan sameynin korkaan ayaa waxa soo koraya waxyaabo xayisiin aan u baahnayn sida website lagu xayisiinayo alaab lagu xayisiinayo baabuur lagu xayisiinayo oo maaragtay website-ka xataa maanta si fiican u isticmaali kartid maanta dhan waxyaabo ayaa lagu soo gelgelinaya ma fahamtay marka virus xataa lagu soo raacsiin karaayo hadhoodii mobilkii ayaa laga dhibaatay karaa ama credit card-kaaga iyo waxyaabaha aad maaragtay online marka wax ku gadanayso kale in attack lagu sameeyo oo maaragtay fraud lagu sameeyo ay dhici karto marka si aad waxyaabahaas isaga bloggareyso qaybta hadda ayaa tagaysaa sida hadda aan soo sameynay ayaa sameynaysaa wax ku soo galaya ma lahan asaga ka bloggareynayo asaga ka celinayo marka qaabka ugu fiican oo loo sameeyo oo ugu fudud sidaas waaye hadii aad u baahan tahana inta tagto maaragtay app store-ka ayaa ad blocker-ka ka soo dejisanaysaa oo maaragtay markaas way badan yihiin midda aad rabto markaas ayaa dooranaysaa oo adiga ku anfacdo laakiin sida hadda ani sameeyaa ugu fudud marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh